guddiga wadada Raaribuur iyo Berbera iyo xubno qurbo joog ayaa socdaal ku tagay degmada Laasciil oo wadadani marayso kana go'doosan inta kale deegaanada Somaliland bulshada reer Berbera iyo dhamaanba Somaliland dibadda iyo gudaheeda waxay go'aansadeen inay furaan wadada oo ay ka sameeyaan jid suurta gelinaya in ay ummaddu u marto adeegeeda walilah alxamdulillah baa mahad iskaashigii ballaarnaa kadib waxayna suurta gashay in tagii laga dhigo 1300 mitir ahaa sida amaanta ku arkaysaan iminka baabuurtu ka gudbi kartaa kuwa aan four wheel drive ka ahayn baa ka gudbi kara laakiin lama gaarin oo mana dhawa halkii loogu tala galay inay ahaato waxa Ilaahay ka rajaynaa in Ilaahay inoo suurta geliyo oo dhamaanteedba aynu niyada gelino oo aynu ka qayb qaadano sidii wadadaasi ay ahaan lahayd mid la mari karo oo la intifaacsan karo insha Allah bidnillaahi kariim aniga waxay la shaqo wacan ma qabtay laakiin waxa ila egtay ciid halka tuuran in engineer argu mihi laakiin haddaan laga xidhin oo gidaar loo dhisin ama biriisho hoos biyo guura raacaan loo sameeyo inay yar adag tahay taasina waxaad sheegteen oo cadaysay in dhaqaale ku xidhan tahay dhaqaalihiina gacanteenu ku jira xoogina gacanteenu ku jira halka waxa iga cadaatay in rag mujaahidiin rag iyo dumarba aatihiin shaqo dawladuhu u qumi waayeen oo taariikhda Soomaaliland ku xariiqan tahay aan waligeed laga qabateen jisaa'igana idinka iskale Ilaahay baa mahadna Allah leh laakiin haddaan la muuqato haddaan la iskiin barbar taagin way yaraanaysa awood waayo wax walba wada qabsi bay ku socdaan baaq waxaan u dirayaa Somalilanderka meel kasta ha jooge wadada tan gubanka ee magaca u bixin waxa la dal maxay ku xeeran dal qarsoon iyo duruufo ku xeeran dal qarsoon iyo duruufo ku xeeran iyo dad ku nool waxa weeye wali anagu hadda wadada hadda inoo bilaabanto waan sii soconaa laakiin dadkii daawaday way daawadeen maanta anana shaahid baanu ka nahay waftigani intay jidka ku jireen waxay sii mareen riyag laga qodayo dhul ban ah oo markii hore adkayd in lagu noolaado sida ay sheegeen dadna ay ugu dhinteen waxaana warbixin waftigaasi ka siiyay xaaladda hadda ee banka iyo markii hore faraqa u dhaxeeya odayaasha deegaankaasi waxay igu darnaa anigu markaan aniga nin kale wada soconay halka aan anagu baay doona biyana go'een markaan tashanay aan gudbi kari weeyaan si ceelasha gaari aan gudbi karo ninkii sida ku baqtay anaa diray naftu deelahay aan dilin aan kaga baxsay diq taasi ba horta igu daray aan meelka kaga tagay meesha aan ka hor lahaa marka hore koobad horta biyo wixii la kordhin karo meel kasta waxa lagu kordhiyo weyn la kordhiyo biyo marka labaad wadada ayaa ku labaa marka taa la helo ee biyuhu lagu nool waa noloshii koobaad weeyaan biyo marka biyuhu bataan ee laga diyado tii labaad xigta waa wadada waa inta wada ka sheegayo biyo la'aanta ugu ay xumayd in badan eeriyatan goobaaranayo laba tiri karo inta ku baqtay ee qof ama aan gir joogay ama nagaga hadhay markii haraan markaan ku soo noqonay aan baqtigiisa ugu nimid waa magabiyo beeyinta u dhaxaysa iyo baad inta u dhaxaysa goobaara la yaho ama sidaas biyo guure iyo biyo xagaleed biyo u dhaxeeyo horta ma jiraan mu'taraf oo laaba waftigan oo soo gaaray deegaanka Laasciil ayaa waxa warbixin siiyay duqa degmadaasi iyo xubn xildhibaan ah oo golaha deegaanka degmada Berbera oo laga soo doortay deegaankan waxaana sheegeen in aysan haysan kaabayaasha aasaasiga ah ee caafimaadka waxbarashada biyaha iyo jidadka waxa uu horeeya dhibaatada wadada wax ka wada ma jiraan wadada horta marka hore wadada soo Berbera iyo Raaribuur isku xidha wadada gobolka iyagu waa Berbera uma safro qaar foor weyn baxaan ahayn ma garo kamana soo baxo ma baahida wadada ka jirta waxaanu nahay marka xaqiiqdii laga hadlo dad xagga ka maxaabiis baan kana anaga talaf dhawarta nooca cidii aragtayna ay maanta siin karto powerka waxa weeyaan waa isku xirka Berbera to Raaribuur waayo inta kale gaadiidku nooc waliba uu maraa wadooyinka maanta la sameeyo laakiin tan dadka ku nool jiidaas waa dadaan helin wax gaadiida oo isgaarsiina oo u dhaxeeya inta u dhaxaysa haday xeebta tahay Berbera iyo haday gubanayo Berbera tahay waqtigan waxa laga safraa jiida awrta xeebta waxay u jirtaa Berbera markaan sheegayo ka Laas Muuse waxa weeye 150 kilomitir ayay u jirtaa
150 kilomitir gaadiidka waxgeeya waxa weeye waa awrta. xubnaha wafdigan ayaa si qiiro leh u sheegay inay intii karaankooda ah ay bulshada u gudbin doonaan dhibaatada taalla halkan. wadada tahay wadada waxba laga hadhin wadada ka soo baxaysa Berbera ee tagaysa Raaribuul ee gobolkaasi saaxil ka tirsan ee 150 kilomitir iyo siyaadada noqonaysa maanta dadka isku tashaday mooyaane community-ga meesha degan ama bulshada meesha degan isku tashatay ama qurba joog noqdaan ama dadka jooga deegaanka noqdaan mooyaane gacan kale dheeraad ay ku yartahay dawladuna noo sheegeen inay u soo jeedo xaggeeda laakiin dhinacyo kale kale priority ay u yihiin waxaan leenahay haddii dawlad tahay iyo haddii shacabkii deegaanka ka soo jeedo qurba jooga iyo haddii reer Soomaaliland guud ahaanba tahay wixii la baxdana sadaqada waa Ilaahay baa idin siinaya. deegaanka Laasciile ayaa ah mid ka go'doonsan deegaanada kale Soomaaliland waxaanu ku yaala gobolka ama xeebta gobolka Saaxil waana dhul hodan ah balse aan haysan cid ka faa'iideysata. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Somsa TV, Burco.